بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي محمد عليه الصلاة والسلام markii uu ku soo laabtay magaaladii Maka ahayd ee laga qaxiyay isagoo ciidan iyo awood leh waxa la sheegaa maalinta inuu watay ciidan lagu qiyaaso 10,000 oo qof oo saxaabadii markaa diintiisa rumaysay kamid ahaa. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maalinta iyo guusha weyn ee taariikhiga waxa la sheegaa inaanu ka dhex muuqan saxaabada oo uu iska fooshanaa faraskiisa si caadi ah ugu dhex jiray oo qof kamid ah asxaabtiisa ahaa. waxa kale oo la sheegaa markii Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam uu soo galay gurigii Baytul Haram iyo Kaabadii intaan qof kale soo galin cidii ugu horeysay uu yeeray 10,000 ee qof uga dhex yeeray noqotay Bilaal bin Rabah. Bilaal Kaabadan iyo magaaladan ka hor maalintan wuxuu ku lahaa taariikh aad u xun. wuxuu ahaa nin madow oo markaasi ay Qurayshi uu ahaa marka adoon. Bilaal wuxuu ahaa nin madow oo ka hor diinta islaamka intaanu qaadan iyo sanadadii hore oo diinta islaamka qaatayba uu ahaa adoon marka dadkii reer Quraysheed ee magaaladan. Bilaal oo adoona waa wuxuu go'aansaday bilowgii diinta islaamka in uu noqdo muslim oo Nabi Maxamed iyo fariintiisa ku qancay, taasoo markaasi keentay in ciqaab iyo cadaab aad u badan la mariyo isla markaana jirdil aan la qiyaasi karin lagu sameeyo sababtoo ah inuu raacay Nabi Maxamed. adigoo adoona waxaan ku doonaa waxaan ahayn ma dooran kartid iyadoo la leeyahay. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam maalintan guusha weyn ee taariikhiga uu gaaray muusan iloobin dadkiisa iyo kooxdiisa kuwii xanuunka ugu badan la u geystay. Muu u yeedhin kuwii carabta ahaa ama reer Quraysheed ama kamid ahaa dadkii gumaysan jiray markaa ninka la yiraahdo Bilaal. laakiin Nabi Maxamed si uu u muujiyo in dadku ay siman yihiin oo kaliya ay ku kala dheeri leeyihiin ama ay dheeraadka ku kala leeyihiin shaqada ay qabsadaan iyo culayska ay soo maraan iyo in uu tusiyo kuwa kale ee markaasi carabta ah ee u badnaa saxaabada nabiga markaasi in diintan aanay carabi lahayn adduun weynaha ay ka dhaxayso buu wuxuu 10,000 ee qof uga dhex yeeray ninka ay u yaqaaneen adoonka madow ama xabashiga. Bilaal buu yeeray oo noqday markaa qofkii ugu horeeyay saxaabada kamid ah Nabi Maxamed Kaabada ku marti qaado. kuma marti qaadin oo kaliya wuxuu ku yiri fuul oo ka eedaan Kaabada markaasuu Bilaal ka eedaamay. kadib bay markaa yimaadeen saxaabada intoodii kale oo ay wax ku tukaday iyo wax markaa ku dawaafay ba ay yeesheen. hogaamiyuhuna oo kaan ilaabin dadkii la soo halgamay oo aan ku qiyaas qaadan mar walba xaaladda marka lagu jiro iyo sida dadku jeclaan lahaayeen, laakiin qiyaaskiisu uu yahay in qof waliba qiimihii uu bixiyay iyo dadaalkii uu bixiyay wax la mid ah uu helo oo aanay abaalka dhacu meel ku lahayn hogaaminta suuban iyo mid rasuulka sallallahu alayhi wasallam. shakatan ku xigta intaan ku kulmi doono dhamaantiin waxaan ku dhaafay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.